maanta waxaan doonayay inaan idinka yara sheekeeyo sheeko yaro kooban oo aan isleeyahay way u qalantaa inaad cid walba la wadaagto ama misaloo kale aad u sheegto markaa waan bilaabayaa macallin ayaa isagoo maalin meel fadhiya ayaa waxa uu yimi ardaydiisa ka mid ah dabeetana waxa uu ku yidhi ardayga macallinkii weydiiyey wuxuu ku yidhi macallin imtixaankii baan dhacay misaloo kale lacag la-aan baa jirta noloshu uga adag tahay hooya saasa aabba saasa adigu nolosha dhibaatooyinkeeda ayuu uga sheekeeyey dabeetana macallinkii baan saa weegay wuu ku yidhi waa la dhaafayaa wiilkii wuu yaabay wuxuu yidhi wax intaa ka badan baa filayay inaad odhanayso hadda maskaxdiisa uu ka imaajin garaynayay markaa wuu yaabo uu iskaga tegey isagoo intii qaadi kari la dabeetana maalin labaadiiba haddana ardaygii macallinkii oo meel fadhiya haddana u yimi dabeetana wuxuu ku yidhi macallin maanta waa faraxsanahay imtixaankii waan baasay lacag wacan baan helay hooyo way faraxsan tahay noloshiisi wacan baan wadaa dabeetana inta macallinkiisa weegay buu ku yidhi waa la dhaafayaa wiilkii wuxuu u qaadan waayey nolosha uu macallinkanu dee sidan misaloo kale uu qiimeynaya leeyahay wax kasta waa la dhaafaya markaa waxaan uga jeedaa sababtan fiidiyoga una duubay waxa weeye haddii ay xaaladdu kuga adag tahay haddii misaloo kale shaqo la-aan ku hayso haddii misaloo kale muruga ku hayso waa la dhaafaya waxaan kaloo kuu sheegayaa haddii aad maanta faraxsan tahay haddii misaloo kale aad shaqo wacan hayso haddii noloshu meeshii ugu wacneed kuu marayso qof aad jecesha aad haysatid waa la dhaafaya marka muhiimaddu waxa weeye inaanay noloshu mar kaliya meel istaagayn ee mar walba ay soconayso.